شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. waxay ahaayeen lamaane safar dhinaca badda ah ay isu raaceen. nasiib darro markabkii ay la socdeen waxaa ku kacay mawjado dabaylo ah, waxaana uu noqday mid baaxaadegaya. inkasta oo rakaabka oo dhan naxdin ku habsatay, haddana arrinka waxaa sii xoojiyey dhawaaqii ka soo yeedhay kabtankii markabka waday oo sheegay inay noloshu halis ku jirto kadib markii uu caddeeyey inay cimiladu xun tahay oo ay yar tahay sida lagu badbaada. waxyar kadib meelo markabka ka mid ah ayay biyuhu soo galeen, taasina waxay keentay in rakaabka intii beerka jilicsanayd oo dhammi oohin bilaabaan. lamaanaha safarka ah ayay gabadhu ninkeeda eegtay isagoo aanay wax warwar iyo argagax ah midna ka muuqanin. waxaanay ku tiri, miyaanay ku dhibaynin nolosheena halista ku jirtaa? ninka ayaa mindi uu haystay soo qaaday oo beerka xaaskiisa ku qabtay, waxaana uu ku yidhi, miyaanad ka baqaynin inaan beerka kugu gooyo oo aad dhimato? iyada oo dhoola cadaynaysa ayay ku tiri, maya, maxaa yeelay waan ku kalsoonahay inaanad sidaas yeelin. ninka ayaa ku yidhi, haddaa maxaad Allah subxaanahu wa tacaala ugu kalsoonaan weyday inta aad ugu kalsoon tahay in ka badan? allah ayaa ah kan nabadgelyada bixiya, isaga ayaana ina badbaadinaya, waana taas sababta aan u dareemayo cabsi la'aanta iyo deganaanshaha.